ma iga horay oo mar waliba baxowda iyo xanuurkiisa oo caadil joogina walaa qalabkiisa jibadani ayaa ahayd dhagaxdhiga dhismaha xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyagoona ka fulinaya deegaanka Shabeelle wanaag ee degmada Dile ee gobolka Awdal waxaana fulinteeda la ururka horumarinta dalada wadajir oo ay ku bahoobeen qurbajoog iyo qolqoljoog deegaankaasi u dhalatay isla markaasina waxa ka soo qayb galay badiba mas'uuliyiin kala duwan oo horkacayo gudoomiyaha dalada Xamse Saleebaan Sheekh Ibraahim xubin kamid ah gudida sare ee daladaasi Maxamed Taani xildhibaan Cabdilaahi Xasan Ardaale oo kamid ah xildhibaanada degmada Baki ee gobolka Awdal Caaqil Maxamed Axmed Caaqli culumadiin aqoonyahan haweenka deegaanka mas'uuliyiin kala duwan oo iyagu kamid ah dalada wadajir oo ka soo kala hayaamay magaalooyinka Hargeysa Wajaal iyo Boorama iyo injineerka gacanta ku haya dhismahan goobtaasi caafimaad ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka horumarinta dalada wadajir Xamse Saleebaan Sheekh Ibraahim waxayna hadaladiisu u dhignaayeen sidan wadajir waa group isxilqaamay una kacay horumarinta deegaankooda wixii karaankooga maaha charity cid kale ay caawiso waxa jeebabkeena ka yimaada wixii jeebabkeena ka yimaada maadaama ku xisaabtamano kolba wixii tamarteena baynu qabanna hadii ilaahay kana noqon maayo kii ugu horeeyay cid kasta oo ka qayb qaadatay maxaan ku raahdaa MCH kan iyo horumarada kale ee deegaanka laga wadaba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanaadka u saaro waxyaabahan oo kalena waa waxyaabaha lagu dhiirado qof walba la rabo inuu ka qayb qaato sababtoo waa sadaqa tijaariye weey MCH ka xarunta hooyada iyo dhallaanku inta ay shaqaynayso inta ay hooyo u shaqayn doonto inta qof xanuunsan ay u shaqayn doonto qofkii ka qayb qaatay sadaqa u socota waxa kale sadaqa u socota cidii dar yeesha horumarka marka laga sheekaynayo horumarku maaha wax inta maalin la dhiso faraha laga qaado horumarku waxa weey waa wax consistent oo maalin kasta wax lagu daro maalin kasta talaaba hore loo qaada deegaankuna aad buu ballaaran yahay dadka maxaan ku dhahay facility ay service-ka loogu shaqayn doona dad badan buu noqon doona marka qof walba mas'uuliyad baa ka saaran tu bulsho iyo tu shaqsiba kadib waxa iyaguna hadalada ka daba qaatay xubnaha ugu sareeya dalada iyo mas'uuliyiintii kala duwanaa ee goobtan ku sugnaa waxaan u taaganahay inaan dhagax dhigno dhismihii xarunta mataqaana hooyada iyo dhallaanka oo ay ka faa'iideysan doonaan dadka ama bulshada ku nool deegaankan waa hooyada iyo caruurta mataqaana deegaanka ku nool halka ay masaafo inta lagu lugan jireen hadii tusaalaan habeenkii madaxu xanuuno kiliinka ay u baahnaayeen inay magaalada u doontaan waqti ku qaadanaysay maanta insha Allah waynu ka bixi doonaa waxaanu sameyn doonaa goob gurigiina iyo halka degantiin u dhow adeegii mataqaana caafimaadkana si fudud ku heli doontaan daladu waxay ka shaqeyn doontaa insha Allah horumar inta ka balaaran hore waxay uga soo shaqeysay inay deegaanka keento adeega biyaha oo hore uga fulisay mashruucaas kana waa kii labaad ee mataqaana ay maanta fuliso laakiin anigoo ku hadlay qaybta ganacsiga horta anigoo Mukhtaar Maxamed Aqliya oo ka tirsan aqoonyahanka deegaanka waxaan ballan qaadayaa maalinta uu MCH kaasi dhamaado inaan insha Allah ku tabaruco dawada farmasiga insha Allah ta'ala hadii ilaahay naftayga daayo ku tabaruco tanatii koobaad maaha waxay noo sameeyeen biyihii ay isku dayeen inay noo sameeyaan noona hirgalay inay qabsoomaan halka bulshahaan annaguna waxaan diyaar u nahay tabarucaad iyo wax walba inaan ku garab joogno caafimaad goobta caafimaadka noo dhismayso dhammaan waxaan salaamayaa ku jooga iyo cid maqanba dhalinyarta ku tabarucday ee gruubka ma iga horay oo mar waliba baxshowda iyo xanuurkiisa oo caadil joogina walaa qalabkiisa dalka iyo dibadda dhalinyarta noo joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay kuwaan eedaa u ahay kuwaan ayeeyo kuwaan eedaa u ahay kuwaan habaryar u ahay soo barbaara hawsha aad noo qabateen ilaahay gacanta haynigula jiro waxaan leeyahay jisaallah khayrna Allah iniga dhigo dadkiini waad noolayseen waxaad naga furateen hooyadii dhiig baxasay ee halka laga roorayay masaaftada loo sii marayay ilmihii yaraa shubanku markuu qabto lala sii roorayay waad nooga baadeen ilaahay xasanaadka jannada haynigu daro waxaan leeyahay hawshaad noo qabateen Allah iniga jisaaysi hanoona si wada waad noo dhamaysan Allah ini dhameeyo dadku wax qabadku ma wax shakhsi ka keeno laakiin hadii la iskaashado wax walba wax kasta waa heli karaa wax kasta waa la qabsan karaa dibad iyo docba
iskaashigu waa xaqaaliya marka waxa weeyaan horta aad baad maasantihiin mar haddii aad hawshii labaad aad noo wadaan waxa weeyaan waa waxqabadkii labaad ee aad deegaanka ka fulisaan ee ah maxay ahaydee MCH-kaasi waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo kii lagu manaafacaade ee aan ka faa'iidaysano ee ilaahay ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay ha inoogu wado ilaahay idinkana kor ha idin qaado laakiin waxaad u guntataan wada jir midnimo dhexdiinana anu inta badan kuma badin joogida halkani inta badan kuma badin dhexdiinana waxaad yeeshaan qolada maamulka cadaaladda ku dadaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanan u adkaynayaa oo keliya wada jir waxqabad badan bay soo qabatay inta ay aasan tahay maba badnaba muddo yar bay aasaasan tahay inta aasaasan tahay ee ururkaasi uu jiro haddana waxqabadkiisa iyo jiritaankiisu kala weyn yahay waxaan leeyahay anugu ururkaasi maantana wuxuu halkaa inoo dhagax dhigaya waxa weeye waa caafimaadka oo MCH caafimaadkuna baahidii inoogu weyneed sabadunagaahaaneed weeyaan maanta waad ogtihiinoo dumar dhiig baxay oo dila intii lagula sii cararayay naga dhintay baa jira maanta halkan haddee lagula soo cararo aqalkii dhexdiisa baa laynooga samaynayaa oo wax ilaahay lagu mahadiyo wey dalladaasi wada jir ilaahay ha iftiimiyaan leh dalladaasi ilaahay garabkooda ha galo way iftiimiyeen deegaanka maxaan idhaahdaa maanta ay u dhashay way iftiimiyeen Ibn Abdullaahi Xasan Ardaale oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland ee uu gadwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda dhowra aniga oo xildhibaana intaas aanu isugu tashanay waxaan u sheegayaa wasaaradda muxuu ahaayay wakaaladda biyaha farsamo intaa yar farsamada biyaha naga xidhan waxa kale oo u sheegayaa dawladda Soomaaliland waxa kale oo la hadlaya wasaaradda waxbarashada macallimiinta la sheegay inay waajibka ay leeyihiin ka soo baxaan oo ay maaragtay waxay leeyihiin inta aan xarunta dhalaanka iyo dumarka iyo dhalaanka ee caafimaadka maanta halka laga dhagax dhigayo ay wixii iyagu awoodda ugu weyn iyo ama mas'uuliyadda ugu weyn iyaga leh inay iyaguna ka soo qayb galaan ay dadkooga iyo dadka xukuumaan iyo wadanka xukuumaan ay aad iyo aad maxaa dhahday ay aad u fiiriyaan aad ugu muxuu ahay indhaha ugu eegaan kulay bari wixii ka dambeeyaan jahlan doonina waxa laga doonayaa beesha bari oo kale geedaha soo dhan si gooyaan baan u baahnay oo say isku xil qaadayaan deegaanka ugu taalaay laakiin geedaha inaga sii jiraan ayaan u baahnay qoladan kale ma tahay daladana horta khayr Allah siiyay iyaguna waxa weeyaan waajibkooda way guteeno marada halkaan oo bilaabaan ma tahay ma tahay beeshoodu u dhisayaan ma tahay beel caafimaad aad buu fiican خير الله سيو التجارة لن تبور الله كيل التجارة عند مارتي مال قمان رجع إنه يمنا الله مارتي وناج وتبرعية إنه نقول حقنا نكون تبرعنا أو حنقب صنو إن أو مارتي حنوهجاج سن إسلا سبنا مارتي يدعاني إنه أوجي الفاتحة intiina waxay si wada jir u dhagax dhigeen goobta loogu talagalay in laga hirgeliyo xarunta caafimaadka waa suxufi cishqi deegaanka Sabawanaag ee degmada Dil ee gobolka Awdal